wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda iyo sidoo kale khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya safarka Axmed Madoobe uu ku tagay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya khilaaf aadan ogeyn iyo arrimo kale oo ka soo kordhay balse ugu horreyn waxaan ka codsanayaa inaad janaalka subscribe saarto muuqaalka like saar oo share garee gaarsii saaxiibadaada barahayga bulshadana rukumo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay khilaafka u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa muuqata inuu yeeshay waji kale kadib markii Axmed Madoobe konton cisho kadib markii dib loo doortay uu dalka dib uga baxay sidoo kalena uu booqasho ku tagay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya dowladda federaalka Soomaaliya oo aad uga carootay bixitaanka Axmed Madoobe ayaa u yeertay safiirkeeda u fadhiya magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi Kenya dowladda ayaa cabashadeeda waxaa ka mid ahaa safarka Axmed Madoobe uu ku tagay magaalada Nairobi iyo sidoo kale in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka xun tahay in Axmed Madoobe xayiraadii ay saartay uusan dhagala qusiinin sidoo kalena uu xurriyad ku tagay magaalada Nairobi waliba isagoo ku socda diyaarad khaas ah dowladda ayaa arrinkan ku tilmaantay inay aad ugu xun tahay sidoo kalena u yeertay safiirkeeda iyadoo su'aalo ka weydiin doonta arrimahaasi la xiriira safarka Axmed Madoobe dagaalka Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqda mid gaaray dalalka diriska iyadoo ay u muuqato in khilaafkooda labada dhinac uu saameeyay sidoo kalena ay la kuleeyihiin dalalka diriska sida Itoobiya iyo Kenya Axmed Madoobe ayaa ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya iyadoo la filayo inuu kala kulmo madaxda dalkaasi ugu sarreysa sidoo kalena uu kulamo la qaadan doono jaaliyadda maamulka Jubbaland ee halkaasi ku sugan dowladda ayaa u muuqatay in amaradeedii iyo go'aanadeedii ay sheegaysay inay ka hirgaleen maamulka Jubbaland sidoo kalena ay ka cilisay duulimaadyadii ku tagi jiray magaalada Kismaayo Axmed Madoobe uusan ahayn nin ka bixi kara magaalada Kismaayo ee haatan been noqotay sidoo kalena arrintaasi ay tahay mid wax ma ka jiraan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay khilaafkooda uu sare u kacay kadib markii dib loo doortay Axmed Madoobe 25 bishii November ee sanadii tagtay 2024 taa oo ay dowladda federaalka Soomaaliya aad ugu soo horjeesatay ayna sheegtay in Axmed Madoobe uu meesha ku joogay sharci hase ahaatee Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo ah ninka shanta sano ee soo socota hogaaminaya maamulka Jubbaland ayaa u muuqday mid aan dhagjala qusiinin amaradaas iyo go'aanadaasi ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya isagoo haatan ah madaxweynaha maamulka Jubbaland ee shanta sano ee soo socota hase ahaatee khilaafka haatan wajiga kala yeeshay u dhaxeeya maamulka Jubbaland dowladda Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la ogeyn halka uu caga dhigi doono